markii aanu aragnay sida madaxweynaha ilaa intii la doortay wax dhis iyo hagaaji mooyaane aanan ku arag in wax qalad ah macni hagrasha taasoo aragtaan inagoo dhaqaalihiinu kooban yahay wixii yaraa siday u beeqaaminayeen ama laami ha ka dhiseen ama guri ha ka dhiseen ama wadaha ka dhiseen ama dekada ka dhiseen ay dhisayaan waxaan nahay shirkadihii total iyadoo total haysata ugu yimi ee dhibtu kala kulantay waxaan nahay shirkadihii ku khasaaroobay markii total haysatay waxa taa naga furmiyay ilaahay baa loo mahadnaqayo madaxweynaha labaad leh madaxweynaha markii uu ka qaaday total dawladdu intii taalkeeda way dhistay waxbay ka qabatay intii deehaamo cusub soo ma kordhin karto oo hantida maanta cashuurta ka soo baxda dalka uma saamaxayso in ay haamo ku dhisto ama dekad ku dhisto ama garoomo ku dhisto maanta dalkii oo ballaadhay dalkii oo dal gaar noqday ummadii oo farabadatay waxa socday waxa laga yaabaa in 200 baabuur socdeen maantana 200 kun oo baabuur baa socda war ma 16 kilomitir kuyuba oo noqon kara kayd dalka haday total wax dhisayso kayd bay dhisahay anigu maanta waxaan doonayaa inaan 20 haamood oo min 6 oo tan qaada dhiso oo 120 kun oo tan hantida waxaan u quuray anigu waxaan u quuraya in aan wax in dhaxal aan reebo oo ubadkayga u reebo waxaana taan nagu dhiiriyay wax qabadka maanta dawladda maanta madaxda dalka madaxda ka ay wado